بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقة وحلا يرادا فاطمة محمد عمر baa la yiraahdaa magacayga waxa weeye tan waxa la yiraahdaa xeero kuliyada shariica xeera la yiraahdaa tan waxa la yiraahdaa dhiishi caanaha lagu shuban jiray tan waxa la yiraahdaa xeerada oo qabya weeyo aan la maystirnayn tan waxa weeye dambiishi lagu soo adeegan jiray tan waxa weeye koortii geela la soo jiray tan waxa weeye shanladii lagu feeran jiray tan waxa weeye marawaxadii dadka wax lagu babin jiray kani waxa weeye barjinkii la barkan jiray tani waxa weeye dhiishi yarada caanaha wax loogu shubi jiray caruurta kani waxa weeye koortii waan sheegnay kan wax la yiraahdo hadhuubkii geela lagu lisi jiray ama gaawe midba muufadii weeye la cunayay mooyihii wax lagu tumin jiray weeyaan waxa weeye bunsharuurkii lagu ala baryi jiray subagii geela oo silsilada xaydha waad maqasheen subagay ka dhalatay weeye waxa weeye hadhu bariiskii weeye cadaan cuni jiray oo subagaysan oo geedaysan waxa weeyaan halka kan soorti tan waxa weeye maxay ahayd toy qarogii yaraayo caanaha lagu dhigi jiray odaga marka caanu yar yihiin diraacdi baa la dhigi jiray tan marka caanu badan yihiin ma aragtay buuxo barwaaqada ayaa wax lagu shubtaa kan hadhuub yar weeye isagun caruurta wax loogu dhigaa tan waa dhiisha yar oo caruurta lagu habo marka ariga la sii hagaajinaya loogu qaada caanaha tarhaantii weeye caanaha lagu luli jiray haye waa isla xeerada nooc kamida weeye fandaalkii wax lagu cuni jiray weeye kii wax lagu karsan jiray weeye dherigii weeye haye xaybada horta bay hadhuurka yagaan tumanaynaa suga macadeeha cadaado caana geelaha weekaado culimaa cuni doonta iyo caali wadaade iyo reer curadkiise macadeeha cadaado caana geelaha weekaado culimaa cuni doonta iyo caali wadaade iyo reer curadkiise waa cambuuladaynu ku soo barbaarnay aynu cuni jirna weeye mooyihii iyo tibihii wax lagu tumi jiray hayo bulaan walaalna magacaaga waa ku bilaabaya bal sharaxaad dheeraad naga sii بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدعي خضرة محمد شريعة وحن كسر كلية الشريعة الدراسات الإسلام كي قانون هذا وحن شحابة كان وحالة لها ما يدق قيبتي سلده متشر والكوي ما يدق قيبتي سمتشر والك لدهوي كان وحالة لها مر أو ململ سيد الله يقانو كان وحبكتي waxaa la dhahaa xabag cadaadad baa la dhahaa kana waxa weeye waa meedigii qaybtiisa mishaadka la dhaho kana waa beeyadii kana waxaa la dhahaa hohob kana waxaa la dhahaa gob kana waa yicibsi kan gob weeyde kana waa hohob kana waa gob kaasna waa yicibti kan alaabatan waxa ka soo iibiseen magaalada Boosaaso mase waxa ka keenteen mase duurka ka soo guray ma duurka laga keenay waxaan dhan tan xataa hadda laga soo guray
magacaygu waa cabdulqaadir saciid cali gudoomiye jaamacadda bariga. waxaa warbixin laga siisaa bandhig faneedkan ku aadan jaamacadda ee East Africa ay qabatay. bismillahi raxmaani raxiim. awalan aad baan u salaamayaa bahda saxaafadda iyo dhammaan abwaanada iyo qoraayaasha Soomaaliyeed. bandhigani waa bandhig ay jaamacadda bariga Afrika qabatay wana talagashay in isbuuc hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed aan u bixinay. isbuucaas oo loogu talagalay in ardada kulliyadaha kala duwan iyo dhammaan dadka abwaanada iyo ay ka qayb qaataan laguna soo celiyo dhaqankii Soomaaliyeedna tuso ardada iskuulkana jaamacaddana la baro in ay bal dhaqankii iyo hidahooda ay bartaan. marka isbuucaasi wuxuu socon doonaa muddo 5 casho laga bilaabo Sabtida 25 ilaa 29 waxaana ku tartamay dhammaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda oo ka kooban 9 kuliyood ayaa ku tartamaya hadduu Ilaahay yiraahdo. ahmiyadda dhabta uu xambaarsan yahay maxaa nooga sheegi kartaa ahmiyadda dhabta oo ku soo beegtay xilligan in la qabto bandhig faneed ku aadan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. runtii ahmiyadda ama ujeedka laga lahaa waxa uu ahaa in ardadu ay sanad dugsiyeedkan ay bartaan bal waxa hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed yahay haday noqon lahayd gabay haday noqon lahayd geeraar dhammaan aqalada iyo waxyaalaha ka hoosay. marka ardada waxaan rabnaa inaan maartay barno ama ay bartaan hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed isagoo noqon doona mid la joogtay hadduu Ilaahay yiraahdo loona sameyn doono madxaf weyn oo loogu talagalay in dhammaan laga helo agabka hidaha iyo dhaqanka oo dhan laga bilaabo waqtigan hadduu Ilaahay. marka ahmiyadda ugu weyn taas bay in isbuucaas uu noqdo isbuuc ardadu ay ku soo bandhigaan qolo walba ama kulliyad walba ay ku soo dhigto wixii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed si ay ardadu ugu helaan fursad inay ka faa'iideystaan waqtigooda. gudoomiyaha waxaa nooga muuqanaya fardo awr iyo alaabo badan oo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed si toos loogu yaqaano oo aad u tiro badan yaa markay gacan idinka siiyay alaabtan tirada badan oo soo ururiseen bal arrinta iyadana faahfaahin naga sii. runtii waxaan oran karaa jaamacadda iyadoo isku tashanaysa iyadii ardadeeda waxaad arkaysaan oo dhan ardada ayaa sameeyay ayaga ayaana maartay gacantooda ku sameystay iyaga ayaana keenay. jaamacaddu martigelinta iyo habeynta iyo jadwalinta bay lahayd laakiin ardada ayaa isku tashatay iyaga ayaana sabab cid ka gacansiisay ma jirto. ugu dambeyntii marka ma sanad walba ma la qabanaya ama arrin sii soconaysa ama sanadkan bas bay ku siman tahay hore sama u qabateen hore maanan qaban sanadkan ayaa bilowno ah laakiin waxaan rajaynaynaa inuu sanad kastaba ay noqoto inuu sanad kastaba la qabto hadduu Ilaahay yiraahdo haddii waqtigu noo saamaxana inaan ka dhigno 6 bilood kasta in mar la qabto laakiin waxaan balan qaadinaa inuu insha Allah sanad walba uu qabsoomo barnaamijkan oo kale oo aan ka sii habayno oo aan ka badino xataa aan ugu talagalno inaan cazulno dad badan oo aan dibadda abwaano Soomaaliyeed ah ama qoraayaal Soomaaliyeed inaan maarta cazulno ayaan jecelnahay oo aan ka sii ballaarino sanadkaas waa bilowga iyo markii ugu horeeyay weey. aad baad mahadsantahay gudoomiye ku xigeen. tabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. qul ati'u Allah war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه الجلسة جلسة مسابقة القرآن الكريم والتي يتنافس فيها كل من الكليات التالية: كلية الشريعة، كلية الإدارة، كلية الحاسوب، كلية التربية، كلية الطب. وهذا الترتيب باعتبار أسبقية الإنشاء، الكلية التي أنشئت أولاً ثم الكلية التي تلتها ثم الكلية التي تلتها وهكذا. وعلى جانب اليمين الشيخ الأستاذ مولد أحمد متان
والذي سوف يتولى لنا مسؤولية السؤال للطالب وتوجيه السؤال إلى الطالب، وسأشارك في التحكيم وكتابة الدرجات، كما أن الشيخ الأستاذ عبد الهادي عيديد أحمد سيسجل على الطالب الأخطاء والفتح والحركة والتجويد. وسنبتدئ إن شاء الله مع أول طالب وهو طالب من كلية الشريعة، وهو الشيخ عمر عثمان علي. فليتفضل الشيخ. arday kasta isaga gacantiisa kula soo baxaya su'aalaha la weydiinayo qaybaha ka kooban yihiin iyo meelaha yihiinba isaga gacantiisa kula soo baxaya insha Allah taala. waxaana kuliyaduhuna waxay u kala horeeyaan sidii micnaha ay taasiiskooda micnaha mutaqana u kala horeeyay. marka saa daraadeed baynu insha Allah taala yaynu ku bilaabaynaa. marka imtixaanna aynu bilaabnaa insha Allah taala. marka su'aasha waxaad u qaadanaysaa bakhtiyaa nasiib su'aalahaas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.